السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي كحيران channelka aad baan idin salaamayaa meel walba aad joogtaan. Maanta waxaan inoo hayaa application aad kaga jiri kartid sawirka backgroundkiisa dambe aadna haddaad rabtidna aad ku qurxsan kartid sawiro aad u qurux badan xagga dambe aad kaga habeen kartid. oo yaan warka idinku badin waxaan galaynaa applicationka waa ka PNG remove PNG ayaa ku qoran xagga markuu shaashada noocan oo kale uu ku keeno linkiga oo applicationka waxaan soo dhigi doonaa descriptionka inshallah meesha kala degi doontaan hadaad u baahatid. applicationku waa nooca marka meeshan ay ku qoran tahay upload image aad ku dhufanaysaa buluuga si aad sawir ku soo xulatid. marka inta wuxuu ku ogol yahay marka inaad camera kale ka soo gashid sawir, inaad gallery ka soo gelisid iyo inaad photo ka soo gelisid. ani gallery ayaan dooranayaa. gallery hadaan doorto gallery markaan doorto sawirada sawir baan soo xulanayaa. sawirka markaan saa u soo doorto marka already waxaad yeeli kartaa sawirku wuxuu ka jarayaa backgroundkiisa dambe, wuxuu ka tiray xaggii dambe oo dhan wuxuu lahaa. sidan waa ku degsan kartaa haddaad rabtid inaad sawirka keligiis aad qaadato meel kale dad kale aad ku dhex tirtid haddaad rabtid sidaanaad ku download haddaad tiraahdo ku degaya. haddaad doonaysid sidiisa hore inaad kusoo celiso backgroundka ka sii bedeshid editkaas sii taaban doontaa. edit markaad taabatid sidiisa hore kusoo celi sawirka waad ujeedaa sidaan ayuu yahay markiisa hore. haddaad doonaysid inaad xagga dambe shucaca kaga furtay qaybta kusii xigtun baad taabanaysaa. shucaca ayaa xagga dambe ka wada galay geedihii waxa dhan waa uu tirtiray. haddaad kusii badisay rabtidka kusii xiga levelka kale sidaas ayuu ka dhigi kan u dambeeyana wuu wada tirtiraya marka meesha oo dhan geedii waxba lama dareemayo. marka waa sidaa sidiisa horaan kusoo celiyo. marka haddaad rabtid inaad qurxisid gadaashiisa dambe ama sawirka aad rabtid inaad ka dhigtid sawir kale xagga dambe backgroundka sawir qurxoon inaad ka gelisid aad doonaysid waa kaas sidaan oo kale. hadda qofka hadda waxaa loo malayn inuu meesha caadi u joogo tusaale ahaan haddana maxaa la dhahay ayuu nooc adiga noocyo badan ayaad ka dhigi kartaa ayaa buuxo. halkan oo kale geedahan waad ka dhigi kartaa barafka agtooda qofkii inuu dhex joogaa loo malaynaya lagama dhex garanayo. marka meelo badan ayaa jirto sawiro badan ayuu ku siinaya aad u fara badan oo aad ka xulan karaysid. marka insha allah habkan xagga qaybtan dhinacaasaan uga baxaya. qaybta labaadna waa backgroundkiisa dambe ayuu wax ka bedelaya sidan oo kale kalaradaas oo kale midabyadaas aad kaga dhigan karaysa haddaad ka heshid oo kale intaas oo kalar ayaad xagga dambe ka dhigan karaysaa ayuu nooc markaad ka dhigatid haddaad doonaysid waa. marka sidaan oo kale markaad u dhammaysid sawirka aad dooratid qaybtaad u rabtid oo kale markaad xulatid ayaad waxaad dhahan karaysaa waa la degaysaa. marka safe ayaad leedahay. safetana waa halkaa qaybtan wey safetu waa halkan xamadaas waaye xaggaas ayaad ka taabsanaysaa safeka leedahay. kadib safe markaa sidaa u tirahdid calaamadan ku tilmaamay taabatid halkan ku keenaya share to image ama download image. downloadkaad leedahay already sawirkii gallerygaaga ayuu toos kuga aadayaa. sawirka markuu gallery toos kuga aado waa kaa uu ku degay toos uu gallery kugu jira adoo backgroundkiisa aad ka bedeshay oo lagu moodo inaad meeshaba taagan tahay. marka ayuu nooc sawiro saas aad ugu qurxsan kartaa backgroundkaad ugu saari kartaa waxyaabo badan aad ku samaysan karaysaa sawiro badan aad isku keeni kartaa. insha allah ka faa'iidaysi wacan asxaabta aad baan idin salaamayaa khayr baan idin rajaynayaa insha allah dhammaantiinba. applicationkana descriptionka idinku reebi doona hadduu ilaahay idmo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta waxaan idinka codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saartaan.